Afghanistan waa dal muddo dheer la daalaa dhacayay dagaallo, burbur iyo dhaqaale jilicsan oo ku tiirsanaa gacanta shisheeyaha. Balse markii ay Taliban dib ula wareegeen talada dalka Afghanistan sanadii 2021, adduunku waxa uu ka filayay inay dib u sii burburi doonaan oo aanay ka soo kabanaynin dhaqaale burburka haysta. Hase yeeshee, waxaa dhacay arrin lama filaan ah. Taliban waxa ay bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin dhaqaale oo cusub oo gudaha ka dhisaya is-aaminaad iyo kalsooni bulshada dhexdeeda, kana fogaanaya ku tiirsanaanta deeqaha caalamiga ah. Musuqmaasuqa maaliyadeed oo la joojiyay, cashuuraha gudaha oo kordhay, lacagta Afghanistan oo la xasiliyay, iyo dadaallo lagu furayo kheyraadka dabiiciga ah ayaa sababay in Afghanistan ay si tartiib ah uga gudubto xaaladda burburka. Inkasta oo caqabado culus oo siyaasadeed iyo bini'aadanimo ay weli hor yaallaan, haddana isbeddelka dhaqaale waxa uu noqday mid indhaha caalamku si dhow ula socdaan. Su'aashu waxay tahay, ma noqon kartaa Afghanistan dal dhaqaale ku dhisan iskiis, iyadoo aan ku tiirsanayn gargaarka shisheeyaha iyo dalka reer galbeedka? Mowduuceenan maanta waxaynu ku falanqayn doonaa siday Afghanistan wax uga beddeleen Taliban dhaqaalaheeda. Lambarka ugu horreeya ama qodobka koowaad ee ay Taliban ku guuleysteen waxa weeye xakamaynta musuqmaasuqa iyo maamulidda dhaqaalaha. Dowladihii hore ee Afghanistan waxaa la hadal hayay musuqmaasuq aad u weyn oo ku jiray nidaamka maaliyadeed iyo miisaaniyadda. Taliban waxay sheegteen inay jareen musuqmaasuqii ballaarnaa, iyagoo lacagtii canshuuraha iyo kastamyada si toos ah ugu shubay khasnadda dowladda. Taasi waxay keentay in dowladda cusub ay hesho dhaqaale joogto ah oo ay kaga shaqeyso adeegyada aasaasiga ah ee dadku u baahan yihiin. Qodobka labaad, kobcinta dakhliga gudaha. Taliban waxay xoogga saareen canshuuraha gudaha, kastamyada xuduudaha, cashuuraha ganacsiga gudaha iyo khidmadaha adeegyada. Warbixino badan ayaa tilmaamaya in sanadkii 2022 dakhliga gudaha ee Afghanistan uu gaaray in ka badan $2 bilyan, taas oo ka badan wixii dowladihii hore ku soo ururin jireen marka laga reebo gargaarka shisheeye. Waxaa si gaar ah loo kobciyay ganacsiga xuduudaha sida dekedda Torkham iyo Spin Boldak oo u dhaxaysa Pakistan iyo xuduudda Iran iyo Uzbekistan. Qodobka saddexaad, dib u nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa dib loo furay iyo dib loo hagaajiyay waddooyin, kastamyada, iyo xarumaha maaliyadeed iyo xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha. Taliban waxay xoogga saareen in la dhiirrigeliyo ganacsiga gobolka. Afghanistan waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo isku xirta bartamaha Aasiya, Koonfurta Aasiya iyo Bariga Dhexe. Mashruuca TABI Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India Gas Pipeline iyo Libis Lisud Corridor ayaa mar kale la xusay in la dhaqan gelin doono, inkastoo weli caqabado siyaasadeed ay jiraan. Qodobka afraad, isbeddel ku yimid lacagta gudaha ee Afghanistan ama shilinka Afgaaniga. Markii hore burburka dowladdii Ashraf Ghani kadib, lacagta Afghan hoos ayay u dhacday si aad u sarreysa. Laakiin Taliban waxay ku guuleysteen inay xakameeyaan qiimaha lacagta iyagoo adeegsanaya kontarool adag oo saaran lacagaha qalaad, mamnuuciyadda isticmaalka dollarka Mareykanka ee gudaha dalka, kordhinta kalsoonida lacagta gudaha. Natiijo ahaan, Afghan ama lacagta Afgaaniga ah, Afghan shilling la yiraahdo, waxa ay noqotay mid ka mid ah lacagaha ugu degan caalamka iyo gaar ahaan gobolka sanadihii ugu dambeeyay. Lambar 5, ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah. Afghanistan waxay ku jirtaa dalalka ugu badan ee leh kheyraadka dabiiciga ah sida dhuxul dhagaxa, macdanta lithiumta oo loo adeegsado baytariyada casriga ah, naxaas, dahab iyo bir. Taliban waxay bilaabeen inay heshiisyo la galaan shirkado Shiineys iyo Iran si loo maalgashado macdanta dalka Afghanistan. Inkasta oo maalgashiga caalamiga ah uu xadidan yahay, haddana waxaa muuqata in macdantu noqon karto isha ugu weyn ee dhaqaalaha Afghanistan ay ka taliyaan Taliban. Qodobka lixaad ee ay Taliban xoogga saareen waxa weeye caqabadaha. Inkasta oo horumar muuqda laga sameeyay dhinacyada qaarkood, dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah cunaqabataynta caalamka, oo waxaa la sheegaa lacag bilyan dollar ka badan inay kaga xadidan tahay bangiyada reer galbeedka oo xaq u lahaayeen dalka Afghanistan iyo dadka reer Afghanistan. Lacagtaasi oo dowladihii hore ay geeyeen bangiyada reer galbeedka. Wax walba oo wanaagsan caqabada ay leeyihiin. Qofku walbaaba oo dadaalana
oo dadaal ku jiraana waxba ka dhimanaan kara. Marka Taliban waxay haysaa tubta toosan iyo wadada guusha. Weli wax badan bay wadanka ka qabteen. Waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusto Afghanistan waxa ka mid ah xashiishkii iyo daroogadii dalka ka bixi jirtay oo dhammaan meesha ka saareen. Iyadoo markii hore ay Taliban ay Afghanistan ahayd dalka ugu weyn ee laga soo saaro xashiishka caalamka. Ugu dambeyntii, isbeddelka dhaqaale ee Taliban ku sameeyeen Afghanistan waxa uu leeyahay laba waji, mid gudaha iyo mid dibadda ah. Waxaa jira haddaynu u soo noqono ka gudaha, waxaa jirta horumar la taaban karo oo ku saabsan xakamaynta musuqmaasuqa, ururinta dakhliga gudaha iyo xasilinta lacagta. Qaybta dibadda haddaan dul istaagnana weli waxaa jira caqabad weyn oo haysta dalka Afghanistan oo ay ku hayaan wadamada reer galbeedka oo ka horjooga aqoonsiga caalamiga. Balse Taliban maadaama isku xukumaan shareecada Islaamka waxay haystaan aqoonsiga Ilaahay, reer galbeed iyo gaalna aqoonsiga ma baahna. Haddii Taliban ay xalliyaan arrimaha hortaagan ee musuqmaasuqa ee weli wax uga hadhan yihiin iyo waxyaabaha qaarkood, waxay noqonayaan wadanka ugu horumarsan caalamka. Waxaana la hubaa haddii ay sidaa ku socdaan loona daayo talada dalka in muddo 10 sano gudahooda uu noqon doono wadamada ugu barwaaqaysan caalamka. Intaynu muuqaalkan ku lamida ku kulmi doono, waxaad leeyihiin nabaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.